waxaan si walba isugu dayay in aan xaaladda xabsiga xog dhan ka helo iyo qaabka uu u dhisan yahay. waa xabsi cajiib ah oo la yaab leh. ujeeddadu waxay ahayd in marka aan hubiyo qaab dhismeedkiisa, goobaha ay albaabadu ku yaalaan, ilaaladu sida ay tahay, waqtiyada ay ilaaladu isbedelaan, meelaha ay istaagaan markay wax ilaalinayaan, meelaha aanay istaagin, dayrku sida uu dhisan yahay, qaab dhismeedka kale xabsigu sida uu yahay, waqtiyada ay ilaalada xabsigu ugu dagan tahay ee laga faa'iidaysan karo. dhammaanba arrimahaasi waxaan ku guda jiray in aan xog rasmi ah ka helo. muddo bil ah ayaana igu qaadatay inaan xogtaasi isdhaxdo ururi. ugu dambaynna xaalkaasi waxa uu noqday waxba kama jiraan. oo sidee u dhacday arrintu? iska daa in aan wax ka ogaado dhammaan arrimahaasi, xataa waxa aan awoodi waayey in aan halkan wax ka sii ogaado, gaar ahaan qaybtan unugyada xabsiga ah ee gudaha ah ee aan ku jiro. ninkayga intan xog ka keeni kari waayey, ma xabsiga oo dhan ayaan xog ka keeni karaa? may weeye jawaabtu. duruufta xabsiga iyo xaaladda aan ku jiray ayaa ii saamixi weyday in aan arrimahaasi ku dhaqaaqo. waxaanu xabsigu u qaybsanaa 3 waaxood oo isdul yaalla oo aanan garan karin sida uu dayrka xabsigu u yaallo. dhinaca ay albaabadiisu u jeedaan, xagga dambe albaaba miyuu ku leeyahay, dhinacyada ma albaabo kale ayuu ku leeyahay. keliya anigu waxaan garan karaa uun albaabkii weynaa ee aanu ka soo gallay. meel kale oo laga bixi karo oo xabsigan ah garan kari maayo. waxaan ugu dambayn go'aan rasmi ah ku gaadhay in aan arrinkaas faraha ka qaado oo aanay sinaba iigu suurtogelin in aan sii wadwadaa. in aan qorshahan iska saaro oo niyadda ka faaruqiyaa waxa iigu qaadatay ilaa 2 toddobaad oo aan si walba isku ilowsiinayay. waxaana ii suurto gashay markii dambe in aan niyadda ka saaro oo aan xaaladdaasi waxba kama jiraan ka soo qaado. waxa aan noqday nin isagii isdaaliyey. xabsigani ma aha kuwii fiilmada laga daawan jiray oo kale, ee waa xaqiiqo dhab ah oo i hor taalla. qaabka loo ilaaliyo oo keli ah ayaanad ka dhammaanayn, iska dhaaf in aad wax kale ogaatee. markaa maxay mashquulinaya? ma waxa aan ku degdegayaa in dhabarka liiga toogto aniga oo meelahaas sii socda? taasi waa waxaan dhacaynin. sannadihii ugu horreeyey ma aanan haysan saacad ama wax iga caawiya in aan wakhtiga ilaaliyo ama aan kala garto wakhtigu kolba sida uu yahay iyo halka uu marayo. marka laga reebo in aan ogaado maalmaha toddobaadka, aad baan ugu mahadnaqaa maalmaha axadaha. hubaal waxa ay ahaayeen maalmo qiimo badan, sababtu waa jaaniska naloo siin jiray maalintaasi in aanu barxadda xabsiga wakhti badan oo saacada ah isaga sugnaanno si ka duwan maalmaha kale. jaaniskan aanu u haysanay in aanu maalinta axadda wakhti wanaagsan ku qaadanno barxadda xabsigu waxa ay noo ahaayeen saacado qiimo badan. taasaana axadda iiga dhigaysay maxaabiista oo dhanna guud ahaan uga dhigaysay maalin gaar ah oo qiimaheeda noo leh. sidaas darteed wakhtiga dhinaca toddobaadka ayaan ku garan jiray maalintaasi, balse saacadaha aad baan dhibaato ugu qabay in aan kala garto, waayo wax wakhtiga aad ka eegan karto sida saacad oo kale ma haysatid. aad bay suurtagal u tahay in xisaabtaydu khalad ahayd. xataa maalmaha qaar waxaan marka dambe ku sixi jiray markana la sii daayo. aad bay suurtagal u tahay in xisaabtaydu khalad ahayd. xataa maalmaha qaar oo waxaan marka dambe ku sixi jiray markana la sii daayo ee aanu daaradda wakhtiga ku qaadanno ayaan garan jiray in ay axad tahay. maalmuhu way iskurayaan, wakhtiguna waa socdaa. maalin marka ay dhammaataba habeen baa ku xiga, wiig baa dhammaanaya, bil baa ku xigta, haddana sannad. dhibaatadii kelinimada iyo gubashadii aan ka gubanayay gudaha ee ruuxdaydu walaaca qabtay waxaan kaga soo kabanayaa ismashquulinta aan ismashquulinayay. buugtii aan kolba mid la saaxiibayey ayaa wehel wanaagsanay noqday. buugba buug buu ii dhiibay. waxaanan isku helay buug badan iyo qaamuuskii ingiriisiga ahaa. waxa ay iga caawiyeen in aan noqdo mid wax badan ka fahmi kara buugta iyo nuxurka sheekooyinka ku jira. taasi ayaa caalam kale idhex dabaalsiinaysay kolba, oo wakhtiyada qaar aan maalinta oo dhan ku ilaawayey xabsigan aan dhex jiifay ee noloshayda cidhiidhiga ka dhigay. xataa waxaan isku dayey in aan luuqadda isbaanishka u dhigo oo aan baro ciddii daraynaysa, balse waxaan waayey cid xiisa u qabta. maxaabiista soomaalida ee siyaasadda u xidhan ee xabsigan ku jirta waxa ay aad u jeclaayeen qaarkood barashada qur'aanka, carabiga iyo ingiriisida. markaa meel uga bannaan in ay luuqad isbaanish ah bartaan ma taalo. habnololeedkooda dhaqan ee soomaalida meel uu muhiim uga noqon karaa
ma jiro. isbaanishka iyo soomaalidu waa ay kala fog yihiin, markaa cid aan baro ama wax uga dhigo luuqadan waan waayey. akhriska buugaagta, geedkii aan beeray, nadaafadda aan nadiifiyo qolkayga iyo naftayda, dhammaanba dhaqdhaqaaqaasi waxa uu ii keenay in aan noqdo mid awood u yeesha in uu iska caabiyo kelinimada xabsiga ee nolosha maxbuusnimo. waxa ay ahaayeen hubka nukliyeerka ah ee aan ku baabi'iyo mawjadaha walaaca, murugada iyo wehel-la'aanta nolosha maxbuusnimo. waxaa iminka dhibaato igu noqonaya in aan dhammaanba dhameeyey buugaagtii taallay maktabadda oo tiradoodu dhammayd 200 oo buug, marka laga reebo wargeysyada Newsweek iyo kuwa kale ee lamidka ah. tani waa niyad jab hor leh. waxa kala badan wakhtiga sannadaha ah ee aan durba halkan ku qaadanayo iyo buugta maktabadda xabsiga taala oo aan ka badnayn 200 oo buug. ma aqaano in ay buug cusub keeni doonaan iyo in ay intaasi ku dayn doonaan. waxaan noqday mid walaac ka qaaday xaaladan gabaabsiga ah ee buugta aan akhriyey. waxaan dib u bilaabay in aan akhriyo oo ku noqdo kuwii hore aan u akhriyey sidii ay u kala horreeyeen ayaan haddana dib u soo bilaabay. durbo waxaa ii dhammaanaya sannado badan. maxaabiistii Itoobiyaanka ahayd ee qaybtan ku xidhnayd weli sidee bay ugu xidhan yihiin. maxaabiista Soomaalida ee intooda badan halkan loogu soo xidhay arrimo la xidhiidha siyaasaddu iyana waa ay ku xidhan yihiin, marka laga reebo maxaabiis tiro yar oo dhammaystay wakhtigoodii xabsiga oo la sii daayey. intii kale halkan ayay ku sugan yihiin. unugta kale ee igu xigta waxaan isku dayey in aan sheekadii jacayl xog ka helo. waa gabadhii ii joogtay dhinaca iyo waddankaygii Kuuba. warqaddii ugu horreysay ee aan u diro qoyskayga ayay iga qaadeen guddida laanqayrta cas ee caalamiga ahi. nasiib xumo warqaddan kumaan xusin gabadhii xidhiidhku naga dhexeeyey ee waxaan tan hore ku socodsiiyey ehelkaygii. waxaanan sugi doonaa bal jawaabta igaga soo noqota oo aan filayo in ay wakhti badan qaadan doonto. qoraalka warqadda waxaa iska kaashanaya maamulka xabsiga iyo guddida laanqayrta cas ee caalamiga ah. xogta aad qorayso waa in ay ogaadaan dowladda Soomaaliya oo wax aanay ogeyn ma qori kartid. waana heshiiska caalamiga ah ee maxaabiista dalalka ay ku xidhan yihiin iyo guddida laanqayrta cas. waxaan filayaa in ay lama filaan ku noqon doonto marka ay warqaddaasi gaadho ehelkaygii. sannado badan waxa ay ahaayeen kuwa aan ogeyn sida aan ku suganahay nolol iyo geeri. waxaana ugu wardambaysay markii ay warbaahinta iga maqleen in maxbuus Kuubaan ahi uu ku dhacay gacanta ciidanka xoogga ee Soomaaliya. rabitaanka aan nolosha ka lahaa ayaa i badbaadiyey. weli intii aan xabsigan ku jiray ilaa hadda, maadaama aanan jirdil iyo maxkamad xukuntoona aanan marin, waxaan noqday mid rajo ka leh in uu mar uun ku soo laaban doono noloshii dabiiciga ahayd oo uu xornimo heli doono kuna laaban doono dalkiisii. balse waxa mararka qaar igu habsan jiray in aan banneeyo rajadaasi. waxa aan sawirin jiray aniga oo halkan ku dhintay oo aan dib ugu noqon dalkaygii. xaqiiqa ahaan geerida kamaan baqayn ee waxa aan ka baqan jiray in aan maskax ahaan waasho. taasi darteed ayaan u ahaa nin mar walba u taagan la tacaalidda ama iska caabinta kelinimada. haddii ilaalada xabsiga ciidamada Soomaaliya iyo taliskooduba u arkayeen geesinimo in ay sameeyeen markii ay soo qabteen oo aan noqday Kuubaan lahayo, xaqna ay u lahaayeen in ay sidaa isku arkaan. taa beddelkeeda anigu waxaan isku arkaa geesi weyn oo la kifaaxaya ama dagaal ugu jira wax kale oo aan iyaga u muuqan, waana xabsiga muddada dheer ah iyo weliba in aan keliday qol ku jiray ku dhowaad 11 sannadood. haa, sidee u noolaan kartaa 11 sannadood oo aad kelida xabsi ku jirto, weliba qol gaar ah oo ku yaala waddan ajnabi ah oo dalkaagii aan ahayn? waa tan sirta ku jirta xadhigaygu. xabsiga waxa ku jiray unug ciidan ilaalo ah oo qaabilsanaa jirdilka maxaabiista. inkasta oo aanan ogeyn in maxaabiista Soomaalida ah ee xabsigan siyaasadda ugu xidhan la jirdili jiray, haddana waxa aan ogahay 100% in maxaabiista Itoobiyaanka ah la jirdili jiray. anigu waan ka badbaaday jirdil badan marka laga tago marar dhowr ah oo aan la kulmay jirdil xoogan. dadaaladeydii aan ku ilaalinayay nadaafaddu kuma filnayn 100% inaan iska ilaaliyo cudurrada oo dhan. waan ku mahadsanaa in aan nidaamkayga nadiifinta joogteeyey intii karaankayga ahaa. waxaan ka fogaaday
kuwa badan oo faafa oo cudurro ah oo igu dhici lahaa haddii aanan nadaafadda qolkayga iyo jidhkayga ku dadaalin. casharada tababarka ciidannimo ayay noogu jirtay haddiiba askariga la qabto oo uu maxbuus dagaal noqdo in uu ilaaliyo inta karaankiisa ah nadaafadda si uu uga badbaado cudurrada halista ah ee uu wajihi karo. muddadii aan xabsiga ku jiray waxa aan ka badbaaday cudurro ka dhalan kari lahaa nadaafad xumada, balse waxaa igu dhacay dhowr jeer xanuunno ay ka mid ahaayeen malaariyada. sababtu waxa ay ahayd goobtan waxa jooga kaneeco ku cunaysa oo badan, gaar ahaan waqti roobaadka. waxaa marar badan xabsiga ku dhalanayay cayayaan. si kasta oo aan isaga ilaaliyo kuma wada guulaysanayn in aan ka wada takhalluso, waayo qolalka igu dheggan ayay ka soo faafiyeen. waxaase kuwaasi lagula dagaalami jiray saliiddii aan idiin soo sheegay ee baansiinta ahayd iyo weliba wixii la mid ah. qaybta kale ee ay ku jireen maxaabiista Itoobiyaanka ahi aad baa looga deyriyey marar badan xaaladda nololeed ee ay ku jireen. maamulka xabsiga ee ii keeni kari waayey xabad saabuun ah bilihii hore ee xabsiga markii hore miyay imika isiin karaan walxo cayayaanka lagu buufiyo? taasi waa maya. amni ahaan ayaanay xabsiga uba suurtoobayn in gacanta laga geliyo walxo uu kaneecada isaga buufiyo qofka maxbuuska ahi. sanadkiiba 2 jeer oo keli ah ayaan xasuustaa in ay buufin jireen oo xabsiga ku buufinayeen walxaha cayayaan dilaha ah ee daawooyinka sunta ah laga sameeyey. taasi kuma filna, gaar ahaan wakhtiga xilli roobaadka waxaa ku dilaysa oo ku cunaysa kaneeco xad dhaaf ah. waxay isiin kari lahaayeen shabaqa kaneecada, balse taasi ma ay dhicin. waan ka bogsaday xanuunka duumada oo igu dhacay. waxa uu ahaa mid leh qandho badan oo xad dhaaf ah iyo xaalad adag. waan ka bogsaday waxaanan helay daaweyn wanaagsan, inkasta oo maalmihii hore xataa xabad asbriin ah aanay isiinin. inkasta oo dalalka adduunka intooda badan, gaar ahaan dalkayga, cudurka duumada ama kaneecada looga arko mid halis badan oo lala dagaalamo, haddana waxaan dareemay in aanay Soomaalidu muhiimad weyn siin ka hortagga iyo la tacaalidda cudurkan, oo aanu uguba jirin liiska cudurrada dilaaga ah, aniga oo weliba maqlay in uu dad badan sanad kasta ka dilo Soomaalida cudurkani. dhowr sano kadib waxa ay nasiib wanaag ii keeneen shabaqa kaneecada laga gaashaanto oo aan sariirtayda ku dul xidhay. waxaan halkaa kaga badbaaday weerarkii kaneecada ee habeenkii, gaar ahaan waqti roobaadka. xabsiga laanta buur waxa uu ku yaalaa sida aan maqlay meel aad ugu dhow webi. taasi waxa ay sii kordhinaysaa suurtagalnimada in ay kaneecadu xaddhaaf nagu noqoto. wakhtiga xilli roobaadkana xaaladdu waabay ka sii daraysay. aan ka gudbay kaneecadu waxa ay iyana ka mid noqotay cadowga aan halkan ku leeyahay oo aan naxariista lahayn, balse aniga oo keli ah iima jeedo, namana kala jeclaa aniga, Itoobiyaanka iyo Soomaalida. intaasiba waa cadaalad ayaan u malaynayaa. sidoo kale haanta weyn ama taangiga weyn ee biyaha ee xabsiga biyaha siiya waxa uu ku dul samaysan yahay meel ku beegan qolkayga. waxa uu ahaa taangi weyn oo sabad sibir ah ka samaysan iyo weliba bir aan u malaynayo in ay dhexdiisa ku taalay. taasi ayaa iyana kaneecada igu sii badinaysay. tani waa maalin kale oo ka mid ah maalmihii xabsiga. durba dhowr sano ayaan halkan ku qaadanayaa. waxa subaxdan ii soo galay ilaalada xabsiga qaar ka mid ah, waana i kaxeeyeen si aan la mid ahayn caadadii habsocodka hawsha xabsiga. waxa aan ku idhi xaggee i geynaysaan? iima ay jawaabin. waxa ay i fadhiisiiyeen meel ku beegan halka ay ku taallay maktabaddu. walwalkaygu wuu sii kordhay daqiiqadiiba. dhibaatadu maxay noqon doontaa? xaggeebay ii horseedi doonaan? markii uu Cawaale ka soo muuqday qolka si uu iiga warbixiyo safarka, waxaan u maleeyey in ergada guddida caalamiga ee laanqayrta cas ay isugayaan aniga. markii aan gaadhay maktabadda agteeda waxaan is arkay aniga oo ay askartu igu hareeraysan tahay. waxa kaloo isna goobta yimid oo iskay soo agtaagay madaxa xabsiga. waa sarkaalkii taliyaha xabsiga, isla kii i qaabilay maalintii aan imid xabsigan. maxaa dhacaya? xaalad warwar ah ayaa iga dhigtay in aan dhabannada qabsado. weerarkaasi ayaa igu kalifay inaan ka shakiyo ujeedooyinkooda. run ma noqon doontaa inaan ka baxno laanta buur? ma aaminsani taasi. waxa aan hadda isweydiiyey, ma dibadda ayay kuu saarayaan oo ay kugu soo tooganayaan? haddana waxaan is idhi, haddii ay dil kuu qorshaynayaan miyay xabsiga iman lahaayeen xubno ka socda guddida laanqayrta cas ee caalamiga ahi? maya ayaan anigu isugu jawaabay. haddana waxbaa jiray oo aanan weli fahmin. bal aan suga sida ay xaaladdu noqonayso. iyagu way iswada eegayaan oo hoosta ayay iskala hadlayaan. anna waan fahmi waayey taasi. saaxiibayaal, qaybta 24aad halkaasay noo joogto. la soco qaybta xigta ee 25aad.